بسم الله الرحمن الرحيم ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan waa idin salaamayaa waxaan jeclahay in aad fikirkayga ila qaybsataan fikirkayga saddex qodob inaan aga hadlaan rabaa qodob waa hay'adda dalka ugu sarreysa ee hadda hogaamiyeyso dhalinyartaas ama tiimkaas waxay jideeyeen nin kasta oo muwaadina la fiirihay siifkiisa iyo dibloomkiisa in la fiirinayo Soomaalina aynan u fiirihaynin kantintiisa waa qaloocan tahay kan uu cad yahay kan uu madow yahay kan uu ka jaban yahay kan gacan uu ka go'an yahay waxaasoo dhan inayna fiirin laakiin ay fiiri doonaan ay fiirihayaan sida ay sheegteen fiirihayaan qofkaas dibloomkiisa iyo shaqadan ma ka bixi kariya in ay fiirinayaan taas haddaan meeshaas aga baxo waxaan rabaa qodobka lamaad inaan soo qabto dhalinyartii wiiftadii wax ku baratay walaale dhalinyartii wiiftadii wax ku baratay waxa waaye dhalinyartaas walaale jaani c hadday ku soo maraan ilaan qof walbo oo Soomaali ah waa inuu jaanis helaa oo dalkiisa iyo dadkiisa uu u faa'iideeyaa marka maadaama ay saas tahay fadlan jaanisi dhalinyartii wiiftada wax ku baratay walaal adigoona untan koorayni tintiisa way qaloocan tahay wuu cad yahay wuu madow yahay lugu ka go'an yahay waa jiisa waxaasoo dhan adigoo u fiirin walaalle ninkaas hoosha ma ka bixi kariyaa iyo siifkiisa muxuu yahay walaalle fiiri saasna ku kala xulo dhalinyartaas waxaan dhihi lahaa haddii aan u gudbo iskoolada haddaan u gudbo dowladda Soomaaliya waxaan u diri lahaa maadaama ay tabartooda liidato ileen cunug hadduu maanta dhasho inta socdo kursi ama sooma qaado amba waalidkiis wax uma soo qabtay juhdi badan la geliyaa rabaa dawladda Soomaaliya inay dawlad yar ay tahay oo wili aynan macluumaadka ummadda ka dhaxeeyay aynan ma arkin oo aynan toos ay unu guda karin waxyaabaha qodood waxaan rabaa inaan baaq adag u diro kubaas waxaan dhihi lahay ummadda Soomaaliyeed dhibaato badan ayaa haysato waalidiin badan ayaa jirto oo ma arkino waxaysteen awlaadoodina ka badbaadiyeen 30 sano iyo 20 sano inta u dhaxaysay dhalinyartii ay ka badbaadiyeen maadaama ay waxaastaan waxbaraan jaamacado baraan ay system ay u jeexeen idinkana hadda shirkadaha private ka tiin hadda dawladdihiin fadlan dhalinyartaas jaanisi maadaama ay tahay nin kasta oo Soomaaliya maalin kamid inuu jaanis helo dadkiisa iyo dalkiisana uu wax ugu qabto sida macallimiinta oo kale waxaan dhihi lahay macallin hadda tahay amba halka uu quraanka dadka ugu faa'iideeyo madaahibtaas islaamiga dadka baro walaalle iyo kan u faa'iideey waxaan dhihi lahaa kuwa kale oo madaahibta oo adduunyada looga faa'iideysto dadka wax baraan walaalle dadka isku toor maahan nin wuxuu cunug la yahay ninna waxa waaye iskool saro baranaya jaamacada u rooraya walaalle Soomaali hadda tahay halka diriskaada oo qadaayo walaal ha fiirsanin ka cun jabrooti adi cun jabrootina diriskaaga si maadaama ay dadka dabqad ay ku kala jiraan walaalle aad ay arrintaas ay ii xanuunjinaysaa marka aan ka hadlayo waxaan intaas aga baxa ayaan jeclaalahay waa ogtihiin Soomaaliya dhibaatada iyo burburka badan ay soo martay waxaan dhihi lahay dadka aqoonta saaxiibka u aqoon-yahanada Soomaaliyeedna ka mid ah qof kasta oo aqoon-yahan Soomaaliyeed ah waa in uu dalkan iyo dadkan oo fiiriyaa dukumiintiga
labaatankii sano ilaa 30 sano in iskoolada lagu dhigaa ay xireeyaan dukumiintigaasna ay ilaaliyaan sida ay wax nooga faa'iidaan jiilalka ama qarniyaasha soo socoto because haddaynan ogeynin waxaad ogtihiin inay dhibaato badan la kulmayaan sidaba aan ununka dhibaatadan aan ula kulannay ilaahiyaa noo qoray alxamdulillaah rabbilcaalamiin adaa noo qortay waana ku samraynaa ciyaarna weligeedba waa gelinka dambe intaasna waa kaftan asalaamu calaykum